marar badan waa ka hadalnay waxa la yiraahdo functional group oo jabta horena ka soo qaadanay kanna waa bilownay aldehyde iyo ketone ayaan ka soo hadalnay qaabkooda caadiga ah maanta waxaan rabnaa aldehyde iyo ketone laftoodu in aan dhamaystir ka sameeyno kadibna aan u gudubno cashirkeena kale cashirkeena maanta wuxuu ka hadlayaa preparation properties and use of aldehydes and ketones preparation kooda waa sidee properties kooda waa sidee either physical or chemical iyo uses kooda wax walba waxay leeyihiin qaab loo bilaabo ama loo diyaariyo aldehyde-ka originally uu ka yimid ketonka xagee buu ka yimid properties-ka ay leeyihiin astaanta muuqaaleed ee uu leeyahay aldehyde-ka iyo tan kiimikeed iyo ketone astaamaha muuqaaleed iyo kiimikeed oo asaga uu gaarka u leeyahay intaa ayaan rabnaa maanta in xooggeena aan saarno cashir noocaana aan sharaxno gabagabada cashirka arday walba ee fadhiyo fasalka waa in uu yaqaanaa sida loo diyaariyo ama loo sameeyo aldehyde properties-ka aldehyde-ka iyo ketonka ay leeyihiin iyo preparation ketonka iyo useska aldehyde-ka iyo ketonka waxaan ku hormaraynaa marka physical properties-ka ay leeyihiin aldehyde iyo ketone aldehyde iyo ketone waxaan ku bilaabeynaa boiling pointigooda barkarkarka aldehyde iyo ketone labadu waxaa leeyahay waa polar molecules with strong intermolecular force than hydrocarbon marka laga hadlayo hydrocarboniska horta waxaa la wada yahay hydrocarbon ayaga polar way wada yihiin laakiin waxaa lagu kala duwan yahay intermolecular force marka waxaa ku awood badan ishaysiga atomyada ay isku dhagan yihiin iyo cufka ay sameynayaan waxaa badan hydrocarboniska ayaa yar waxaa badan aldehyde iyo ketone aldehyde iyo ketone they are incapable of intermolecular hydrogen bond giving them weaker intermolecular force than alcohol aldehyde iyo ketonka ayagu hydrogen bond ma sameeyaan oo ma sameyn karaan ayagu ma sameyn karaan sababtoo ayagu waxay isticmaalayaan intermolecular force oo normal ayay sameeyaan sida alcoholada ma aha aldehyde iyo ketone higher boiling point ayay leeyihiin barkarkar aad u sarreeya ayay leeyihiin markii loo fiiriyo hydrocarboniska iyo aldehyde iyo ketonka waxaa barkarkar badan oo boiling pointigooda uu high yahay aldehyde iyo ketone aldehyde iyo ketone have lower boiling point than alcohols laakiin alcoholada ayay ka barkarkar hooseeyaan oo alcoholada ma gaaraan ayaga waxaa leeyahay haddana similar mass because of not having hydrogen bond between them alcoholada ayagu waa isku nooc miisaan ahaan ama cuf ahaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin alcoholada waxay leedahay hydrogen bond ayaguna ma laha hydrogen bond okay example-kan fiiri kan waa bentane kan waxa waaye bentanal kan waxa waaye bentanol alcoholada fiiri meeqo waaye 118 bentaneka meeqo waaye 36 aldehyde-ka iyo ketonka fiiri maxay kala yihiin 76 oo aldehyde iyo ketone oo 80 marka taa waxay ku cadaynaysaa marka in alcoholadu ay barkarkeedu aad u sarreeyo laakiin ketonku iyo aldehyde-ku ay ka hooseeyaan barkarkar waxayna ka badan yihiin alkeenka waxaan soo sheegnay alkeenka iyo aldehyde iyo ketone waxaa barkarkar sarreeya alkeen laakiin waxay ka hooseeyaan alcohol ma gaarsana alkeniska ama hydrocarboniska way ka sarreeyaan waayo solubility minlaan heerka minlaantu asna muxuu yahay based on the general rule governing solubility dissolves aldehyde and ketone are soluble in organic solvent marka laga hadlayo solubility-ga
milnaanta caadiga ah ay samayn jireen qolyihii kale hydrocarboniski ay sameeyaan oo micnaheedu uu yahay ayagu waa organic solvent, waa mile ka yimid original noole. aldi hadday yihiin waa organic solvent, ketonkan waxaan leenahay waa organic solvent. Sababta maxay tahay marka? aldehyde iyo ketone labaduba waxaa ku jira oxygen atom with an available lone pair. They can intermolecular force to form a hydrogen bond within the water. Sida ognahay aldehyde iyo ketone waxay leeyihiin oxygen. Oxygenkan waxaa haysta lone pair, joog laba dabar oo lamaana ayuu haystaa. labada dabar ee lamaana oxygen waxay ogolaanayaan in oxygenka biyaha uu ku milmo uuna la falgala hydrogenada ku jira biyaha, sida sawirka hadda ka muuqata. marka hydrogen bond ayuu sameynayaa, then water molecule ayaa imaan kara. marka low molecular weight aldehyde and ketones, miisaan yarida ama kuwa hoose ee aldehyde iyo ketonka, those having less than 6 carbon, carbon koowaad ilaa carbonka shanaad loola jeedaa, ayaga waxaa lagu yaqaanaa soluble in both organic solvent and water. organic moleculeska koowaad ilaa shanaad ee aldehyde iyo ketone, oo micnaheedu uu yahay carbonka koowaad ilaa carbonka shanaad, waxaa lagu yaqaanaa inay ku milmaan biyaha iyo organic solventiga qaab isku mid ah. laakiin higher moleculeska aldehyde iyo ketonka, those having 6 or more than, waxaa la soo karaa oo kaliya soluble only organic solvent, waxay ku milmayaan oo kaliya organic solvent but insolvent or insoluble in water, biyaha kuma milmayaan. ayagu soluble in organic matter but insoluble in water ayay noqonayaan. preparation marka see loo sameynaa? markaan ka hadlaynay alcohol, gaar ahaan primary alcohol iyo secondary alcohol, waxaan ka soo hadalnay primary alcoholka in laga sameyn karo aldehyde, oo cashirkii alcoholada markaan ka hadlaynay reactionadeeda ayaan soo qaadanay. warkii ayaa noo soo laabtay. oxidation lagu sameeyo alcohol, gaar ahaan alcoholka primaryga, ayaa wuxuu soo saari karaa aldehyde. alcohol primarya oo oxidation lagu sameeyaa ayaa wuxuu soo saari karaa aldehyde. haddii alcohol oo secondaryna lagu sameeyo oxidation, wuxuu soo saari karaa ketone. warka aad u fahanyaa, alcohol oo secondarya haddii lagu daro oxygen oo oxidation lagu sameeyo, waxa uu soo saari karaa secondary alcohol lagu daro oxidation, wuxuu soo saari karaa ketone. laakiin primary alcohol ee lagu sameeyo oxidation waxay soo saari kartaa aldehyde. hadda fiiri, secondary alcohol dabar ayaa ku jira. secondary alcohol ayaa waxaa lagu diray oxygen oo oxidation ku dhacay, idan waxaa yimid dimethyl ether. maxaa yimid? dimethyl ketone. ketone dimethyl ketone ama borobanon. reactions of aldehyde and ketones, falgalada ay sameeyaan noocay noqon karaan. oxidation. aldehyde iyo ketone ayaa waxaa lagu sameeyaa oxidation. ujeedku muxuu yahay? si loo soo saaro carboxylic acid, laakiin aldehyde ketonka markii laga hadlay oxidationka ay ku kala duwan yihiin. aldehyde-ka oxidationkiisu waa easily, laakiin ketonka not easily. ma fududa in ketone loo bedelo organic acid ama carboxylic acid, laakiin aldehyde-ka si fudud ayuu ku noqonayaa carboxylic acid marka uu dhaco oxidation. marka sida sawirka ka muuqato, a common reagent for this oxidation is potassium dichromate. Ketone are not oxidized with potassium dichromate. organic acid wuxuu ka imaan karaa sida badan aldehyde markii loo isticmaalo catalyst potassium dichromate, waxaana soo baxayo carboxylic acid. hadda example waxaan soo qaadanay butanol oo carbonka afraad ah ayaa wuxuu soo saaray butanoic acid.
laakiin markaan wuxuu noo sheegayaa ketoonka in uusan oxidationka markuu dhacayo catalyst ahaan uusan aqbali karin potassium dichromate ee wax kale uu aqbali karo. qodobka horena waxaan ku ogaanay in sida buugga kugu qoran buu ka fiiri aldehyde-ka si fudud ayuu ku samayn karaa oxidation, laakiin ketoonka si fudud kuma samayn karo, waqtiga qaadanaysaa in uu sameeyo oxidation. qodobka labaad reduction in la sameeyo. Okay, waxaa leeyahay aldehyde haddii reduction lagu sameeyo gaar ahaan primary alcohol ayuu isu bedelayaa haddii reduction lagu sameeyo. ilaa aldehyde wuxuu ka yimid alcohol ka yimid, haddii reduction lagu sameeyo marka oxygen laga saaro wuxuu ku laabanayaa booskiisa hore, marka waxaa catalyst noqonaya lead, platinum iyo nickel sida meesha ku qoran. aldehyde ayaa reduction lagu sameeyey, waxaa soo baxay alcohol ayaa soo baxay. marka ketone haddii asna la yareeyo oo secondary alcohol ayuu isu bedelayaa. ilaan ketoneka original wuxuu ka yimid secondary alcohol, haddii marka reduction lagu sameeyo wuxuu dib ugu laabanaa secondary alcohol ayadoo la isticmaalaya catalystihii sida lead, platinum iyo nickel. maxaa loo isticmaalaa aldehyde iyo ketone? waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah aldehyde-kan ugu horeeyo methanol waa la yiraahdaa, waxaa kaloo loo yaqaanaa formaldehyde waa la yiraahdaa, waana kaarboonka ugu horeeya ee aldehyde-ka. waxaa sida badan loo isticmaalaa asaga in laga sameeyo waxyaabaha badi laga sameeyo waxaa kamid ah rinjiyada, waxaa kaloo laga sameeyaa urea, formaldehyde and plastics, maadooyin la yirahda laga sameeyaa. formalin sida badan waa maado oo biological preservative ah ee lagu ilaaliyo waxyaabaha nool la rabo inay baaqi sii noqdaan. tusaale hadda Soomaaliya waxaa lagu iibiyaa qudaar laga keenay dibadda, tufaaxa tusaale ku soo qabo, fruitiska ama oranjada kale. anyway fruit ama qudaar laga keenay dibadda ayaa wax lagu iibiyaa dalka. waxa qudaarta ay u halaabi laada ama fruitka u halaabi laada wax kale ma ahan, waxaa ku jira maado la yiraahdo formalin, taasoo ka dhigaysa in muddo shay uu sii jiro, marka inuu shayga baaqi sii ahaado muddo. haddii timeka formalinka uu dhamaadane mirtu waxay noqonaysaa mid qurunta markaya. marka formalinka biological preservative loo isticmaalaa marka laga hadlayo xataa biological specimen, marka la sameynayo tijaabooyinka laabka oo kale si uusan kaaga adkaanin waxaad rabtid inaad baarto, asagaa la isticmaalaa. acetaldehyde oo kale waa nooca labaad ee ketone aldehyde-ka, waxaa loogu talagalay sida badan in laga soo saaro acetic acid. acetic acidna waxaa la yidhahdaa khalka sida badan lagu darsado khudaarta marka la rabo raashinka in la cuno, biyaha cadi salaatada kor looga daro. waxaa jira waxa la yidhahdo vinylin oo laftiisu lagu daro cunada, waxaa loogu daraa cunada si uu u sameeyo flavor, waa vanilla micnaha. jalaatada iyo cuntooyinka qaar lagu daraa si cunada ay u yeelato nakiha, micnaha dhadhan fiican iyo udug ay u yeelato. marka waa loo isticmaalaa. ketoneka kiisa koowaad waxaa la yidhahdaa acetone. acetoneka waa kan koowaad ee ketoneka sida badan warshadaha isticmaala, waxayna u isticmaalaan organic solvent ama industrial solvent yaa loo isticmaalaa. waxaa kaloo laga sameeyaa polymer of organic compound, isku dhis noole ayaa lagu badiyaa qaab artificial ah markii la rabo in la isticmaalo. acetoneka waxaa kaloo loo soo saaraa halida sida badan ama soo saara jirka bini'aadamka ayaa soo saara. ujeedku maxay tahay? to break down fatty acid. jirkeena fats ayaa gala, cunno fat cunaa, fatka in la burburiyo waxaa ka dambeeyo acetone oo ketose process la jira jirkeena ka dhaca, liver ayaana qabta. waa biological process oo marka laga hadlayo casirka digestive systemka, gaar ahaan marka laga hadlayo hormoonada jirka accessory hormoneska ee beerka iyo pancreas soo daayaan, ayaa arki doonta acetoneka ama ketose processka. exercise which compound in each bar has highest boiling point.
high boiling point kuwan yaa ah A waa 2 B waa 2 C waa 2 D waa 2 indicate of if it is soluble or insoluble in water waxaan ka soo hadalnay heerka solubility-ga milaanta ay sameyn karaan ayaga markay biyaha kan ku milmi kara iyo kan ku milmaynin fiiri oo sheeg saadaali oo qiyaas reactionka soo socda haddii potassium dichromate la isticmaalo kan meeshaan fiiri labadan isku dhis ee meesha noogu qoran haddii catalyst ahaan loo isticmaalo potassium dichromate maxaa ka imaan kara kanna muxuu soo saari karaa kanna muxuu soo saari karaa ardayay cashirkeeni maanta kaasoo aan kaga hadlaynay preparation properties and their use of ketone and aldehydes halkaa ayuu ku egyahay